عليكم. waxaan ugu faraxsanahay inaan anigoo matalaya magaaladiina quruxda badan ee Hargeysa inaan marka ugu horeysa martida inooga timaad adduunka ilaa soo dhawaada wadamada ay inooga kala yimaadeen Morocco, Kenya, New Zealand, Ghana, Djibouti, Mareykanka, Ingiriiska, Bahrain, Germany, Ethiopia, Cameroon, wadanka Sweden iyo Holland. qolada si gaar ah u soo dhaweeyay caasimadda qolooyinka ag fadhiyana haday kelmadaan halkan ka ilaaw sheegaan waan uga mahadnaqi lahaa qolada Afrika ka timi iyaga waxaan leenahay ku soo dhawaada wadan Soomaaliland la yiraahdo oo Afrika ka mid ah waxaan aaminsanahay Afrika inay bila xuduud noqoto oo ay soo furanto oo ay kala ganacsato oo dhaqaalaheeda ay sidaa u korsato inkastoo Afrika ay nala meereysatay oo xuduudii isticmaalka iyo 1960kii ay nagula meereysteen haddana waxaan aaminsanahay qof kastoo Afrikaan inuu Soomaaliland la leeyahay marka iyaga wadankiina ku soo dhawaada baan leeyahay qaaradiidii baa wali joogtaan wadamada kale ee saaxiibka nahay New Zealand, Holland iyo Sweden iyagana saaxiibtinimo ku soo dhawaada baan leeyahay qoladan Ingiriiska iyagu wali ma garan waxay naga dhaxeeya taariikhdeena in denial ay kaga jiraan malaa Ingiriiska nusnaqaani baa madhay baan isleeyahay marka qolada taariikh baa inaga dhaxayso taariikhdii wali may qadarintii muddo kama helin waan soo rajeynayaa in martida inala joogta maalmaha soo socda aynu aad ula hadalno wax weyn na farno dabeetana fariinta ay qaadaan ay celiyaan intaasi waa qolooyinka ag fadhiyo bal intaa u sheega dikana hadii wadaan waqti yar helo waan la gaargaaraya insha Allah waxaan doonayaa inaan halku dhaga adkaysi resilience inuu mowduuc la dooro fiican yahay halku dhag la dooray inuu yahay oo ummadda Soomaaliland ka turjumaya wadagtiino waxaynu u adkaysanay wadamadan geeska Afrika dhibaatadii ugu weyneed ee ka dhacda rejiimkii halkan joogay ummaddan uu xasuuqay guryahan uu dumiyey qof halkan fadhiyo oo qof kaga dhimana ama kaga dhaawacmina dagaalkii ay dheerkii ma jiro haddana wali waynu noolahay dalkeenii la dumiyey baan dib u dhisaynaa magaaladii Hargeysa dhulka lala simay ayaynu dib u dhisnay adkaysi ummad samayso kii ugu weynaa baynu samaynay adkaysanay waxaa taa ka daran xuquuqda bini'aadminimada inaynu nahay ummad adduunka ka mid ah bay adduunku 30 sanadood aqoonsan lahayn wadankan nabadda ee dhismay ee uu shuruud kasta oo qaran ugu aqoonsan lahaa buuxiyey waxaynu nahay ummadda aan adduunku waxba u sheeganayn shuuciyaroo waddan ragca iyo MCH suuliyaroo lagu qorahayd baa dhistay iyo waxaasi ma hadee wax ummaddan la gashaday ma laakiin ummaddan qarankeeda iyada dhisatay 30 ka sano iyada dhisatay ciidanka nabadda ilaalinaya waxba la inagu tarin lacagteena yaraynu isticmaalaa waxba la inagu tarin waxaynu nahay baan isleeyahay malaa wadanka koobaad ee adduunka aan deyn iyo deeq weyn midna aan ku qabin
ولنا لينا لما فاهمين بملا سببتها إن الصومال نقولناي الصومال لأن أمينا جوين إن كجودا الصومالية إنه عقدة قبنا عد الله يلا عد إن عقدة قبنا ودي بنوجي استمشرته إن إسكت سامحني لكن واحد يدون إن مشاكلات كدون كائن إنه حلنا قيب كنا قلنا الدون كنا إنه نبكم الناس وكرين تتقحيكم الناس وكرين وضن فراي شايلو بربوريكم الناس وكرين وعند كسو كرديني وضن إلى الصومالي لان الدون كأقول نبضون تدكيسو دلاليان شقين أيان دقالوه تمرتو دونه على هذه الكبعة أو مارت كارك الإسرائيل جيس كان أفريقيا النبض بين كسو كرديني منطقة أولي السبع هيد دل كنا الصومال النبض بسو كردي حدوده صغير مركا الدون كا واحتر بين أولى نهاي لكن شغلة واحد نقبلنا يضل عندنا حبا إنه شيء جنين بعدين دويد بان وحنا حديد قلوا إنه حق أولى نهاينا إنه وحنا تران بسمع عاصمة ده تبتني إيميل كيس ودرا وانهيا وحوري مركا دوني سويني قلوا أيضا كل شقيسو وحكونتاك برسمنا وسير كمالية ده الصومالية marka hargeysa aad joogtana saacad baad la hadlay saacad marka la hesho saacadna halka kale la sii hadlay ummadan yar ee masaakiinta adduunka xaq baynu u leeyahay wal bank haday tahay iyo cidi hay'adaha caalamiga adduunka ka dhaxay xaq baynu u leenahay wixii la tarayo Soomaaliya in qaybteena la siiyo cidina inuu daba fadhiisanana ma waxaan qabaa arintaasi in meel adag la iska istaago madaxweynaha oo ku hambalay inuu meel adag ka taagay arintaas ninkii Soomaaliya wax la qabanaya toos ah ula qabto ninkii ila meerayso wadaana ay naga tago 30 sano waa soo jirnay arinta argeysa waad ogeydeen marka laga yimaado inay duntidu dib u dhisnay haddana waad ogtihiin suuqii ugu weynaayo waa heen bin weynay dhaqaalaheennii bin ku weynay xoolo badan oo lahayn bin ku weynay dadkani way adkaysteen maanta suuqii waxaan rajaynayaa James Jack codsanaya in delegateska inoo yimi in la kaxeeyo oo la geeyo waaheen oo indhooda ku arkaan oo videoga la daawadsiiyo wixii meesha ka dhacay habeen loo dedicate gareeyo dabeetana la kaxeeyo oo ay arkaan halkii xaaladu tagtay iyo dadkani muddo yar oo kooban xaaladii halkii soo celiyeen arintaana waxaan aad uga mahadnaqayaa isma siinayna libinteeda ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel kasta joogto ayaa arintaas Soomaalinimo ka muujiyay gacanna ka soo geystay Soomaalida aan reer Soomaaliland ahayna waa uga mahadnaqaynaa waayo waxaan ummad marka wax la taro abaalka celisa oo waa mahadsantii dadka ku timaada halka ugu dambaysa cimilada adduunku way isbedelaysaa hargeysa waxay u adkeysanaysaa dhibaatada kaga imanaysa isbedelka cimilada adduunka roobkii wuxuu daayaa xilli aynaan garanayn wuxuu keenayaa daadad fara badan wuxuu duminayaa wadooyin shalay dhisnay wuxuu qaadanayaa nafo fara badan wuxuu duminayaa guryo fara badan dabaylo badan ayaa soo kordhay gubashaduna waa joogto marka iyadana adkeysigeeda iyo ka soo kabashadeeda ama rumaysta ama sidii kale uu qaato 20 guri baa ayay mararka qaar kood gaadha hargeysa gubtaan wixii la tari karayaa la taraa waa laga soo kabtaa alxamdulillah laakiin mar kasta nafaynu ku weynaa marka adkeysigeedana iyadana waa yeelanaynaa madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay wasaaradii inuu wasaarad gaara oo mandate kale inoo sameeyay dawladaha hoosana waxay sameeyeen xafiisyo u gaara isbedelka cimilada iyo khataraha ay ugu iman kara ka hortaga dawaa soo dhaweynayaa martida inoo timi oo dhan waqtiga liisii 10 daqiiqo ahaa intaasaan ku soo gabagabeyn jaamacowna waxaan kaaga mahadnaqayaa si gaara oo walaalnimo ah inaad u saamaxdo magaalada Hargeysa iyo Somaliland in sanad walba mar la isugu yimaado oo adduunkan ila hagraday meel uu Soomaaliya la garanayn ee dadka wax qabsaday waxba la qaban la ugu yaraan aad tusto nabadeena iyo dhismaheena iyo qaran dhiskeena. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.